asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. nabadda wadayaal meel kastood joogtaan waxaad ku soo dhowaataan warka Arabsiya News. qodobada aad wararkayga xilligan aad ku daawan doontaan warkeennana waxaa ka mid ah wararkii ugu dambeeyey xaaladda ka taagan bariga dhexe iyo marinka qasa uga fashiliya dhagaro loo maleegayo Somaliland, damaca Itoobiya, qorshaha Al-Shabaab iyo khataraha cusub. daawadayaal kuwaas waa qaar ka mid ah qodobada aad warka ku daawan doontaan, iminkana ku soo dhowaada isagiyo fidsan. xogaha asaasi ah oo lagu wadaagay warbaahinta bulshada ayaa muujinaya qorshayaal khatar ku ah Somaliland, kuwaasoo dowladda Itoobiya ay ku jirta ay ka maleegayaan galbeedka dalka, gaar ahaan gobolada Awdal iyo Salal. xogtan ayaa lagu sheegay inuu jiro qorshe iskugu jira dagaal siyaasadeed iyo mid toos ah oo ay Itoobiya damacsan tahay inay ka rido gobolka Awdal, iyadoo ujeedaduna ay tahay sidii ay ugu suura geli lahayd helidda dekedda Saylac oo damac kaga jiro. khabiir dhanka sirdoonka ah oo lagu magacaabo Cabdifataax Koohi ayaa baahiyey qoraal dheer oo kaga warramayo dhagaraha loo maleegayo Somaliland, isagoo soo jeediyey talooyin la xidhiidha in Maraykanka loo soo jeediyo in haddii uu Somaliland soo degayo la geeyo Saylac si uga hortago khataraha uu ka digay. qoraalkan oo uu baahiyey khabiirkan sirdoonka ayaa uu ku yidhi waxaa maalinta ku xigta isa soo taraya dagaalka laga yaabo inuu ka qarxo gudaha Awdal, kaasoo buucdiisu ay tahay dekedda Saylac. dagaalkan waxaa diyaar ah oo qorsheeyey diyaarintiisa 4 kooxood. dowladda Maraykanka oo soo degaysa dhowaan Somaliland. Maraykanka waxaa ka socda wadahadallo xoogan oo ujeedadiisu tahay inuu soo dego Somaliland. arrinkaasi ayuu yidhi khabiirkani oo aan hubo xaqiiqadiisa ujeedka uu u soo degayo waxa ugu horeeya 2 qodob oo ah la dagaalanka Shiinaha iyo argagixisada. joogitaanka Maraykanka wuxuu awood buuxda u yahay duulaan kasta oo dowlad kale ama argagixiso ku soo qaada gobolka Awdal ee Somaliland, waxaana soo dedejinaysa faragelinta Shiinaha oo soo xoogaysanaysa marba marka xigta. dowladda Shiinaha gudaha Somaliland ka wada kacdoonna waaweyn si ay awood ugu muqooniso Somaliland. waxay taageersan tahay in Itoobiya soo degto Saylac xoog ama xeelad. sidoo kale waxa ay Eritrea iska kaashanayaan inay hub fara badan ku soo daayaan dhammaan deegaanada Somaliland sida gobolka Awdal. 3 kooxda Al-Shabaab oo 2 sano diyaarinaysay qorshaha iyo waqtiga ay soo galayaan gobolkan. Al-Shabaab waxay qorsheynaysaa inay qorato kooxo gobolka u dhashay iyo welibana deegaanada xuduudka ah ee gudaha Itoobiya, taasi oo salka ku haysa dib u soo noolaynta Axmed Gurey iyo halgankiisii, iyadoo ujeedaduna ay tahay la dagaalanka Maraykanka iyo Itoobiya labadaba. 4 Itoobiya oo damaceeda ugu weyn uu yahay xeelad ama xoog inay ku hesho dekedda Saylac, waxa iyaduna isku diyaarinaysaa inay dadka deegaanka soo dhex marto. ujeedada ay Berbera uga leexatay Itoobiya oo ay Saylac u rabto ayaa hal shay, kaasi oo aanay inta badan muujin. kaasi oo Itoobiya waxay ku lahayd 19% saamiga shirkadda maamusha dekedda Berbera ee DP World. hase ahaatee waxba kuma lahayn lahaanshiyaha dekedda lafteeda wax saami ah ama hanti maguurta ah, laakiin waxaa maalgelinta raasamaalka leh DP World iyo shirkad maalgelineed oo Ingiriiska ah. sidaa daraaddeed Itoobiya waxa ay rabtaa dhul ay toos dhismihiisa u maalgashato oo ay lahaanshiyihiisa wax ku yeelato, taas oo siinaysa inay mustaqbalka weligeed ay yeelato Saylac. Cabdifataax wuxuu talooyin u soo jeediyey dadka reer Awdal, waxaanu yidhi dadka reer Awdal waa inay fahmaan inay gobolka iyo dhulkaba iyagu leeyihiin oo aanay lahaanshiyihiisa gorgortan gelin marnaba. kooxaha diidan saami qaybsiga Somaliland ee Awdal ka soo jeeda Awdal waxaa la gaadhay wakhtigii si degan oo caadifad ka fog looga fikiri lahaa mustaqbalka deegaanka. ugu dambeyntii waa in dadka gobolka Awdal isha ay ku hayaan khatarta ay leeyihiin kooxaha xagjirka ah oo ay ka feejignaadaan, ayuu ku soo gabagabeeyey. Israa'iil ayaa weli ku adkaysanaysa go'aankii ahaa in magaalada Qasa ay ka baxaan ilaa iyo 1 milyan oo rayd ah oo reer Falastiin ah muddo 24 saacadood gudahooda. arrintan ayaa imanaysa xilli xogayaha arrimaha dibadda ee Maraykanka Antonio Blinken uu sii ballaariyay wadahadallada mushkiladan la xidhiidha ee uu joogo bariga dhexe. Blinken waxa uu hore u tagay Israa'iil iyo Urdun, waxaanu haatan wadahadalladiisa ku fidinaya wadamada Khaliijka Carabta iyo Masar. Israa'iil ayaa waraaqa digniin ah ku daadisay gudaha Qasa
kuwaasi oo dadka rayidka ku farayso inay ka baxaan magaalada haddii kale laga takhalusayo sida uu sheegay mid ka mid ah dadka rayidka ah. Tallaabadan ayaa imaanaysa iyadoo ciidamada Israa'iil ay isku diyaarinayaan howlgal dhulka ah oo ay ku qabsanayaan magaalada. Hadda waa xilligii dagaalka, waxaa sidaas yidhi wasiirka difaaca ee Israa'iil Yoav Gallant xilli diyaaradaha dagaalka Israa'iil ay duqeynayaan Gaza, iyagoo sheegaya inay ka aargudanayaan weerarkii ay kooxda Xamaas sabtidii tagtay ku qaadeen Israa'iil. Militariga Israa'iil ayaa sheegay inay ka howlgali doonaan magaalada Gaza maalmaha soo socda, islamarkaana shacabka ay awoodi doonaan keliya inay magaalada ku soo laabtaan marka loo sheego. Bayaan uu soo dhigay barta X, afhayeenka ciidamada Israa'iil Jonathan Korkosh waxa uu ku yidhi EDF waxay ku baaqaysaa in dhammaan dadka rayidka ah laga saaro magaalada Gaza iyo guryahooda dhanka koonfureed si ay u badbaadiyaan nafahooda una guuraan aagga koonfureed ee waadiga Gaza iyo webiga Gaza. Waxaad awoodi doontaan inaad ku soo laabataan magaalada Gaza keliya marka ogeysiis kale oo fasax ah la sameeyo. Ha u dhowaanina aagga xayndaabka ammaanka ee dowladda Israa'iil, ayuu yidhi. Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in ayna suuragal ahayn in tallaabada noocaasi ah ay dhacdo iyada oo ay taasi ka dhalan karta cawaaqib bini'aadanimo oo burbur leh. Qaramada Midoobay waxay si adag u codsanaysaa amar kasta oo noocaasi ah haddii la xaqiijiyo in la laalo iyada oo laga fogaanayo wax xaalad masiibo ah u bedeli karta xaaladda markii horeba silica ahayd. Waxaa sidaas yidhi afhayeenka Qaramada Midoobay Stephen Dujarric. Safiirka Israa'iil ee Qaramada Midoobay Galen Ardan ayaa u jawaabay Qaramada Midoobay ee digniinta Israa'iil ay siisay dadka deegaanka Gaza ku qeexay mid ceeb ah. Sarkaal ka tirsan Xamaas ayaa sheegay in digniinta la xidhiidha Gaza ay tahay dacaayad been abuur ah, waxaana uu shacabka ugu baaqay in ayna ku kalsoonaan. Israa'iil ayaa wacad ku martay inay baabiin doonto kooxaha Xamaas. Israa'iil ayaa wacad ku martay inay baabiin doonto kooxda Xamaas oo hogaaminaysa weeraradii Sabtidii, balse duulaanka dhulka ee Gaza ayaa keenaya khatar weyn iyadoo Xamaas ay haysato lahaystayaal badan oo laga qafaasho weerarkaasi. Warbaahinta dadweynaha Israa'iil ee Kan ayaa sheegtay in dhimashada Israa'iil ay kor u dhaaftay 1300 oo qof. Maamulka Gaza ayaa sheegay in la dilay in ka badan 1500 oo Falastiiniyiin ah. Israa'iil ayaa godoomisay Gaza oo ay ku nool yihiin 2.3 milyan oo qof. Hay'adda Laanqeyrta Cas ee ICRC ayaa sheegtay in shidaalka motorada degdega ah ee cisbitaalada Gaza ay ku dhammaan karaan saacado gudahood, iyadoo hay'adda Qaramada Midoobay u qaabilsan cunnada ee WFP ay ka digteen cuntada iyo biyaha nadiifta ah ay aad u hooseeyaan. Dhibaatada bini'aadanimo ee ka dhalatay xiisadan kasii daraysa waa wax laga naxo, waxaana ka codsanaynaa dhinacyada inay yareeyaan dhibaatada dadka rayidka ah, ayuu yidhi Fabrizio Carboni oo ah agaasimaha gobolka ee ICRC. Israa'iil oo sheegtay in militarigeedu isu diyaarinayo weerar cir, bad iyo dhul ah oo uu ku qaado marinka Gaza. Ciidamada Israa'iil ayaa hadda maanta ah waday u diyaargarowgii duulaanka dhulka oo ay ku galaan Gaza, kaasi oo ay sheegeen inay ku doonayaan in ay ku burburiyaan Xamaas oo toddobaadkii hore qaada weerarkii ugu dhimashada badnaa ee taariikhda Israa'iil. 8 maalmood u dambeeyay tan iyo markii dableyda Xamaas ururka Xamaas ay weerar aan la sii filanaynin ku dishay in ka badan 1300 oo qof oo Israa'iiliyiin ah. Israa'iil waxay kaga jawaabtay olole ba'an oo duqeymo ah oo ay la beegsatay Gaza oo ay ku dhinteen 2300 oo qof. Gebi ahaanba xaafadaha magaalada Gaza ayaa burbursan, waxaana cisbitaalada buuxdhaafiya kumanaan kun oo dhaawac ah oo ku sugan deegaankan go'doonsan, balse waxaa jirta cabsi laga qabo in xaaladdu ay kasii darto. Israa'iil ayaa ciidamo tiro badan dhoobtay hareeraha marinka Gaza oo ay ku nool yihiin ilaa 2.4 milyan oo qof, waxaana uu ciidanku sheegaya in duulaankoodu noqon doono weerar dhul, cir iyo bad ah. Dhinaca kale, Xisbullah oo weerar loo adeegsaday gantaalaha lahago ku qaaday waqooyiga Israa'iil. Kooxaha gurmadka degdega ayaa sheegaya in nin Israa'iiliyaan ah uu ku dhintay meel ku dhow xuduudda Israa'iil ay la wadaagto dalka Lubnaan. Dilka ninkan ayaa ka dambeeyey kadib markii gantaal laga soo riday Lubnaan uu ku dhacay waqooyiga Israa'iil. Waaxda gurmadka degdega ah ee Israa'iil ayaa sheegtay in ninka la dilay ay rayid ahaa islamarkaana ay jiraan dhaawacyo kale oo gaadhay dad rayid ah. Waa khasaarihii ugu horreeyay Israa'iil ka soo gaadha dhinaca waqooyi toddobaadkii lasoo dhaafay. Kooxda reer Lubnaan ee Xisbullah ayaa sheegtay in gantaalada lahago ay ku riday deegaanka Shaatullah. Dhinaca kale, hogaamiyayaasha iyo mas-uuliyiinta dalalka
caalamka ayaa siyaabo kala duwan uga hadlay xaaladda ka taagan marinka Gaza tan iyo maalintii uu bilowday. Markaynu eegno 24 saacadood u dambeeyay qaabka hogaamiyayaashu uga hadleen xaaladda sii xumaanaysa ee marinka ayaa waxaa ka mid ah madaxweynaha Koonfur Afrika oo taageeray Falastiiniyiinta isagoo cimaamad garabka ku sita. Madaxweynaha Koonfur Afrika Ramaphosa ayaa sheegay in dowladdiisu taageersan tahay dadka reer Falastiin oo uu sheegay inay dhibaato haysato. Dhanka kale wuxuu tacsiyadeeyay shacabka reer Israa'iil ee dhibaatadu ka soo gaadhay weeraradii Xamaas, waxaanu sheegay inuu ka walwalsan yahay colaadda ka jirta bariga dhexe. Sidoo kale wasiirka arrimaha dibadda ee Ireland Michel Martin ayaa soo saaray bayaan cusub oo ku aadan xaaladda Gaza. waxyaabihii laga soo xigtay ayaa waxaa ka mid ahaa go-aanka militariga uu ugu sheegayo dhammaan dadka rayidka ah ee ku nool waqooyiga marinka Gaza inay u guuraan dhanka koonfureed si ay ammaankooda u helaan. waa khatar aad u weyn oo aan suuragal ahayn in la fuliyo. waxaan sidoo kale aad uga walaacsanahay darawkaca dagaalka iyo dhimashada daanta galbeed oo ay ku jiraan dhacdooyinka kordhay ee rabshadaha iyo barakicinta bulshooyinka Falastiiniyiinta. sida uu dhigayo sharciga caalamiga ah, Israa'iil waxay xaq u leedahay inay iska difaacdo weerar, laakiin tani waa in lagu sameeyaa iyadoo la eegayo xuduudaha sharciga caalamiga ah ee bini'aadantinimada. dhinaca kale waxaa sii xoogaysanaya banaanbaxyada lagu taageeraya Falastiin oo ka kala dhacay dalalka caalamka, iyadoo maalnimadii shalay ee Sabtida ahayd ay banaanbaxyadu ka dhaceen caasimadaha Mareykanka iyo kumanaan dibadbaxayaal ah oo taageersan Falastiin ayaa maalnimadii shalay iskugu soo baxay ee Sabtida ahayd bartamaha magaalada London, iyagoo ku baaqaya in lasoo afjaro dhaqdhaqaaqa militari ee Israa'iil ay ka wada marinka Gaza, kaasoo ka dhashay weeraradii toddobaadkii hore ay Israa'iil ka geysatay kooxda Xamaas. dibadbaxayaasha oo qaar badan oo ka mid ahi ay lulayeen calanka Falastiiniyiinta iyo boodhan ay ku qoran yihiin Falastiin xor ah ayaa iskugu soo baxay meelo u dhow Oxford, halkaasi oo ay socod ku tageen Downing Street oo ah guriga rasmiga ah iyo xafiiska ra'iisul wasaaraha Britain Rishi Sunak. sidoo kale magaalada Washington DC ee caasimadda Mareykanka ayaa iskugu soo baxeen kumanaan shacab ah oo ka soo horjeeda duulaanka Israa'iil. ururada u dooda xuquuqda carabta, muslimiinta iyo Falastiiniyiinta ee Mareykanka ayaa dhaleeceeyay taageerada shuruud la'aanta ee Washington ee dagaalka Israa'iil ee Gaza, iyagoo dhaleeceeyay warbaahinta iyo siyaasiyiinta Mareykanka. magaalada Düsseldorf ee dalka Jarmalka ayaa ka mid ahaa goobaha sida weyn la iskugu soo baxay maalnimadii shalay. dalalka Islaamka ayaa sidoo kale tan iyo maalnimadii shalay ay ka dhacayeen barnaamijyo waaweyn oo lagu taageerayo qadiyadda Falastiin. daawadayaal, qodobkaas ayaa ugu dambeeyay xilitabinteena waraarintan warkan warkaxiga kulmi doona waxaan kaga tagaya. assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.